waxaana wanaagsan idilaantii madaawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya qodobada aan xilligan idin haynana waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Baardheere ee gobolka Gedo khasaaraha dagaalkii ka dhacay oo si weyn u kordhay iyo militariga Soomaaliya oo guulo ka sheegtay dagaaladaasi taliyaha militariga Soomaaliya miya amray in ciidamada xoogga Soomaaliya ay weeraraan maamulka Jubbaland ee Baardheere ku sugan xogo lama filaan ah oo ay heshay warqaad ayaanu idiin soo gudbin doonaa insha Allah xiisa dagaal oo ka taagan magaalada Beled Xaawo ee gobolkaasi Gedo Jubbaland oo ciidamo badan soo bandhigtay iyo militariga Soomaaliya oo weerar ku ah halkaasi iyo Puntland oo guulo waaweyn ka gaartay dagaalka Daesh meedadkii ugu badnaa oo ajaanib cadaan u badan oo ay soo bandhigtay qodobadaasi ayaanu ku faahfaahin doonaa barnaamijkeena insha Allah fadlan daawade muuqaalka like saar sidoo kale si share garay la sii wadaag saaxiibada kale ee kugu jira baraha bulshada aad iyo aad u mahadsantiin aynu ku bilaabano wararkeena sida wararkeenii hore ee saakay aad ku daawateen dagaal culus ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo hadda waxaanu idinla wadaageynaa wararkii ugu dambeeyay khasaaraha dagaalkaas oo si weyn u kordhay iyada oo macluumaadyo kala duwan oo ku saabsan in militariga Soomaaliya dagaalkaas ay qayb weyn ka qaateen aanu helnay ayaanu idinla wadaageynaa khasaaraha dagaalkii ee saaka ka dhacay magaalada Baardheere ayaa waxa ay wararka ay heshay shabakada wararka ee Warqaad TV waxay sheegayaan inay aad iyo aad u kordheen isla markaana khasaaraha uu yahay mid labada dhinac si weyn u soo kala gaaray waxa la xaqiijiyay in uu geeriyooday gudoomiyihii arrimaha bulshada ee Baardheere Caagane kaas oo ugu magacaawna halkaas dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa sidoo kale wararku ay sheegayaan in askar badan ay dagaalka ku dhinteen waxaana la tilmaamay in ugu yaraan 10 ruux ay halkaasi ku geeriyoodeen dhaawac waxa la sheegayaa in halkaas uu ka sii badan yahay haddaba maxaa ka jira in militariga Soomaaliya dagaalkaasi ay qayb ka qaateen muuqaallo iyo warbixinno ay iska soo duubeen saraakiisha militariga ee halkaasi ku sugan ayaa waxa ay guulo kaga sheegteen dagaalka iyaga oo sheegay in dagaalka saakay ay iyagu qaadeen isla markaasna ay guulo ka gaareen dagaalkii ka dhacay Baardheere waxa ay sheegeen in ciidanka Jubbaland iyo maamulkooda oo iswata ay shalay xoog kula wareegeen magaalada ee Baardheere xarunta degmada looga arrimiyo laakiinse wararka aanu xaqiijin ayaa waxay sheegayaan in degmada ay ku wada sugnaayeen labada ciidan ee dawladda federaalka iyo kuwa maamulka Jubbaland isla markaasna labada maamul ee dawladda federaalka iyo Jubbaland kala taabacsan ay iskula jireen xarunta degmada Baardheere ee gobolka Gedo intaas wixii ka dambeeyay waxa la tilmaamay in militariga Soomaaliya ay dagaal culus saaka soo qaadeen isla markaana ay soo weerareen xarunta ee degmada oo ay ku wada sugnaayeen labada dhinac sidaas ayuuna dagaalku ku xoogeystay isla markaana loogu awood sheegtay maamulkii Jubbaland iyo ciidamadii markaasi ee taabacsanaa wararku waxa intaas ku sii darayaan in ciidamada qaarkood ay isdhiibeen isla markaana ay u gacan galeen ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana ay soo bandhigeen militariga Soomaaliya hub ay sheegeen in ay ka furteen ciidamadii saaka ay la dagaalameen haddaba maxaa ka jira in taliyaha militariga Soomaaliya uu amray in ciidamada xoogga Soomaaliya ay weeraraan maamulka Jubbaland ee Baardheere wararka warqaad uu helayo waxay sheegayaan in sarkaal ka tirsanaa militariga Soomaaliya kaas oo ah sarkaalka haysta magaalada Baardheere uu isagu qaatay go'aanka ah in la weeraro ciidamada Jubbaland ee ku sugnaa xarunta degmada Baardheere ee gobolkaas waxaana uu amarkan siiyay saraakiisha kale ee ka hooseysa iyo ciidamada sidaas ayuuna dagaalku ku qarxay isla markaana uu ku sii xoogeystay oo uu ugu fiday meelo badan iyadoo markii dambe ay keentay in ciidamadii Jubbaland ay u sii dul qaadan waayaan dagaalka taasina ay soo daadajisay in ay isdhiibaan sarkaalkan ayaan si rasmi ah loo ogeyn in uu amar kore ka haystay taliyaha ugu sarreeya ciidanka ee General Odawa Yusuf Raage walow la sheegay in Odawa uu tilmaamay in arrimahaas uusan waxba kala soconin si kastaba ha ahaatee xaaladda ayaa hadda waxay tahay mid aanan markaasi aad iyo aad caga badan ugu taagnayn maadaama Jubbaland ay iyaduna wado is-urursi iyo in ay dib markaasi u soo rogaan celin karto magaalada Baardheere ee gobolka Gedo waxaa dhawaan markaasi la wareegay maamulka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana halkaasi isaga baxay kuwii Jubbaland laakiinse shalay ay mar kale is-abaabul sameeyeen waxayna dib ugu soo laabteen xarunta degmada waxaa jirtay waan iyo wada hadallo la doonayay in lagu xalliyo arrinta isla markaana aysan bahashu isu gadin gacan ka hadal laakiinse waa lagu guuldaraystay oo waxa la doonayay in labada maamulba oo dawladda federaalka iyo Jubbaland in ay si nabada ku wada joogaan degmada
wada hadalna la furo sidaasina wax lagu dhammeeyo. wasiirka amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Fartaag ayaa la sheegayaa in arrintan uusan wax badan kala socon maadaama uu isaga tagay gobolkaas Gedo, inkastoo uu halkaa ka sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay doorasho ka qaban doonto. waa hagaag isla wararka gobolka Gedo ayaanu saaxiibayaal ku guda jirnaaye markaana haddii aanu eegno magaalada Beled Xaawo ee gobolkaasi Gedo. wararka aanu ka helayno magaalada Beled Xaawo oo ah magaalo dhacda xuduudka Soomaaliya iyo Kenya ayaa lagu soo warramayaa in xiisad dagaal ay iminka ka taagan tahay. waxaa la tilmaamay in Jubbaland ay halkaasi ku diyaarisay boqolaal ciidamo iyada ka amar qaata, kuwaas oo la sheegay in uu hogaaminayo sarkaal halkaasi ku sugan oo aanan magaciisa helin. sarkaalkan ayaa la sheegay in ay soo gaartay lacago aad u fara badan oo kaga imaatay dhinaca iyo Jubbaland, waxaana uu u qaybiyey ciidamada halkaa ku sugan. sarkaalka ayaa ku wargeliyey ciidamada in ay markaasi isu diyaariyaan dagaal ay la geli karaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. dhinaca kale militariga Soomaaliya ee ku sugan magaalada Beled Xaawo ayaa iyaguna wada abaabul xoog leh iyo difaac in ay markaasi samaystaan si ay isaga caabiyaan weerar kaga imaan kara dhinaca iyo Jubbaland. si kastaba xaaladda gobolka markaa Gedo ayaa waxay tahay mid qasan, iyada oo militariga Soomaaliyana ay doonayaan in ay gacan ku haynta gobolka Gedo si buuxda gacanta ugu dhigaan. haddaba macluumaadyada kale ee soo kordha halkan ayaa toos ugala socon doontaan insha Allah. ugu dambayntiina Puntland guulo waaweyn ayay ka gaartay dagaalka Daacish ay kula jirto. waxa ay Puntland soo bandhigtay meedadkii ugu badnaa oo ajaanib caddaan ah, kuwaas oo ay ku dishay dagaaladii saacadihii la soo dhaafay ee shalay ilaa iyo saakay soconayay ee ka dhacaya buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari. waxaana Puntland ay sheegaysaa in guulo waaweyn ay ka gaarayso dagaalka ay kula jirto kooxaha argagixisada ah ee Daacish. dhinaca Puntland waxaa maanta la xaqiijiyey in uu geeriyooday generaal weyn oo lagu magacaabayay Gaagaale, kaasoo ka mid ahaa saraakiisha ugu firfircoon ee howlgalka Daacish markaasi isagu loo diray. waxaa sidoo kale ku geeriyooday saraakiil isla wada dhalatay oo iyaguna dagaalkaasi ku nafwaayay. waxaa moodaa in Puntland ay dhiigga markaasi horayso, islamarkaana ay doonayso in ay si toos isku dhaafiso kooxaha Daacish oo iyagu taageero ka helaya dowlado markaasi ajnabi ah.